sinaantan la magacahay sankuneefle ma ogoli inuu iga sarrayn karo anna garasho sogordahan sooriye ruuxu gama dhigo Soomaali baan ahay ninna madax salaax iyo kama yeela seetada sasabada ma qaayibo sirta waxaan idhaahdaa saabaan biyaha celin Soomaali baan ahay inkastoon sabool ahay haddana waa sirriigtaa sacbada ma horsado saaxiib nimaan nahay cadowgayga lama simo Soomaali baan ahay ereyga Soomaali wuxuu ka yimid ama uu dhabarka ku hayaa ereyo dhalan rogmay oo kala ah Soomaal, Duumaal iyo Soomaale. Dhulka Soomaalida waxaa kolkii hore loo aqoon jiray dalkii filka weynaa, dhulkii udgoonaa iyo dhulkii eebayaasha. Culimada ku xeel dheer abla-ablaynta tafiirta aadanaha guud ahaan way isku khilaafsan yihiin halka ay ka soo jeedaan dadka Soomaalida la dhaho. Inkasta oo la dhaho waxa ay ka soo tafiirmeen qowmiyad kala isku dhaho Kushitiga. Sidoo kale waxaa luqadda Soomaaliga lagu daraa luqadaha Kushitiga ee lagaga hadlo Kenya, Tanzania, Suudaan, Masar, Eritrea iyo Itoobiya. ayadoona ah luqadda Soomaaliga midda ay dadka ugu badan ku hadlaan marka laga yimaado midda ay Oromadu ku hadasho. Aqoonyahan ku xeel dheeraa cilmi afeedyada bulshooyinka dunida oo la dhihi jiray Dr. Huntingford wuxuu cadeeyay in afka Maymayga uu yahay mid asal ah oo aan ka buuxin ereyo Carabi ah ama English. Magaca loo aqoon jiray magaalada Muqdisho waa Sirboon, waxaana ereyga Muqdisho loola jeedaa maqcad shaax oo ah kursiga boqorka ama meesha ugu wanaagsan ee boqorku fadhiisto ama xarun ka dhigto. micnaha xamar waa la isku khilaafay waxaana ugu xoogan laba qol oo kala ah in magaca xamar ka yimid luqadda Carabiga sida al-Hamra halka qaar kalena ku sheegeen in uu ka yimid kelmadda Ximyar oo ahayd dawlad islaamka ka hor xukumi jirtay Yemen. waxaa magaalada Muqdisho dhidbada loo aasay waqti aad u fog oo ay taariikhyahanada isku khilaafsan yihiin waxayna sheegaan in magaaladani la aasaasay qarnigii 2aad ama kii 3aad ee taariikhda miilaadiga. Muqdisho waxay ahaan jirtay xarun ganacsi oo caan ka ah dunida waxayna ka koobnaan jirtay 6 xaafadood oo ay kala xukumi jireen odayaal. dalka Soomaaliya gobolka ugu badka yar waa gobolka Banaadir waana gobolka ugu xuduudaha yar wuxuuna xuduud la leeyahay oo kaliya gobolada Shabeellooyinka. gobolka ugu xuduudaha badan waa gobolka Baay oo xuduud la leh gobolada Hiiraan, Bakool, Gedo, Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Dhexe. sidoo kale gobolka Baay waxaa laga helaa buur Heebe oo ah buurta ugu dheer koonfurta. magacii hore ee loo aqoon jiray degmada Balcad ee dhacda gobolka Shabeellaha Dhexe waa Taytay. gobolka Jubbada Dhexe waa gobolka kaliya ee maraan wabiyada Shabeelle iyo Jubba wuxuuna qani ku yahay dooxooyinka kaymaha iyo ciidda hodanka ah ee beerashada ku fiican. wabiga Shabeelle wuxuu Soomaaliya ka soo galaa gobolka Hiiraan asigoona ku dhamaada meesha la yiraahdo Dhey Tubaako. wabiga Jubba asigana wuxuu Soomaaliya ka soo galaa gobolka Gedo wuxuuna ku dhamaadaa uu badda kaga darsoomaa goobta dalxiiska ku wacan ee Goobweyn. dhulbaraha ama Equator-ka waa xariiqa toosan ee adduunka u kala qaybiya waqooyi iyo koonfur wuxuuna Soomaaliya ka maraa tuulo la yiraahdo Sanguuni oo ku taala gobolka Jubbada Hoose. Sheekh Xasan Barsane wuxuu ahaa halyeey Soomaaliyeed oo gumeystihii Talyaaniga u babacdhigay sidoo kalena caan ku ahaa inuu ciidankiisa ka barbar dagaalamo. waxaa ka mid ah dagaalada isxixigay oo ay guulaha ka soo hoyeen asiga iyo ciidankiisii: dagaalkii Buulabarde, dagaalkii Ceel Dheere, dagaalkii Hiil Weyne, dagaalkii Jilyaale iyo dagaalkii Hareerile. halgamaa Sheekh Xasan Barsane waxaa gacanta ku dhigay Talyaanigii asigoo dagaalamaya 4 Abriil 1924 sida ku cad buugga Orizzonte di Impero oo uu qoray Mario Di Veggio. isticmaarkii wuxuu ku xukumay 30 sano oo xabsi ah laakiin waxa uu ku geeriyooday xabsiga dhexdiisa 3 sano kadib 13 January 1927. waxaa la sheegaa in uu u geeriyooday sun loogu buufiyay qolka uu xabsiga dhexe ee Muqdisho kaga xirnaa.